hadna waa ku mahadsantahay maadaama miyara ay keentay daawadayaasha idinkana maanta xafladtiina furay u joognaa laakiin aniga xabadan miyarada hore u soo watay maadaama aroskeed markii u dhacay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا قيمة يقدرين تيغا مدنو ملك سواد دافها عالم كاكغنو شايسي قصادي داوانا إصابة وعنو ونكسن هديت أيكولن كاقو هرد صوب وقتو عكاسين اسكرايو تيسار طولي بادي شاركراي سولايك تناسال أماركاد نحرق هذا الكاكسي بغتنا فرنان ما ميناتكو انتي عافي ما تغبويه فكر كاقا حقه سيقول سوو داكتو أباباي وحي عصوب iga warayso waxaad maqashaana ka fiirso haddaba maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshadu ku kulantay waxaa si weyn u haysay adlaanta diina faray iyo weliba saxaaf reer Malaysia ah kuwaasoo weliba ay dadyo badan baraha bulshada la dhex wareegayeen maalmihii ugu dambeysay kuwaasoo weliba muran badan ka dhaliyay xagga YouTube-ka iyo weliba Facebook-yada Snap-ka iyo weliba TikTok-yada kuwaasoo murankoodu hawada isku shareeray markii ay dadyo badan soo bandhigeen kuwaasoo weliba dadka aadka u dabagala ah ayaa waxa ay soo bandhigeen fiidiyo fara badan iyo weliba codad fara badan kuwaas oo ay keeneen markii ay arkeen xurgufta iyo waxyaabaha ka dhaxeeya haddaba waxa ay sheegeen in ay si hoose isu qabaan sida hadalka u dhigayaan haddaba dadyo badan oo ka warramaya ayaa sheegay inay tiina faray iyo weliba saxaaf ay isqabaan sida hadalka u dhigayaan haddaba adna ay sheegeen inay ka masiirtay arrinta iyada weliba ay aadna uga carootay waxyaabaha ay wadaan dadkani haddaba dadyo fara badan ayaa beeninayay waxyaabaha baraha bulshada ee weliba kaftanka hadallada kaftanka ay hadda ka hor ay wada duubeen dad gurigooda noolaa saxaaba ayay ahaayeen walaalaa fiidiyoyadii hore lasoo jarjaray kuwaasoo baraha bulshada weliba siyaabo khaldan loo soo gelinayo iyadoo la sheegaya in ay isqabaan weliba qulbasinana ay isku qabaan sida hadalka u dhigayaan dadyogaasi haddaba saacadii lasoo dhaafay baraha bulshadu waxaa si weyn u haysay lahaynta labada qof iyo weliba dadyo fara badan oo kale kuwaasoo sheegaya cadeymo iyo weliba waxyaaba kale inay keeneen balse ay tahay waxay kaftan iyo weliba maadaalo iyo qosol ay ka lahaayeen balse aanay hayn wax taliya raadtoona leh haddaba hadallada ay dheheen kutikoonteenta ay baraha bulshada alina dhex wareegayaan sidii raadtoona lahayn ayaa ah qaaran fiicnayn marka loo eego waxyaabaha ay dadka qaar sameynayaan haddaba tiina faray ayaa dhankeeda hadashay iyadoo sheegtayna in ay raggaas dumarkooda ka qaadi doonto sida hadalka iyadoo dhigtay balse saxaaf iyo adna ayaan la hadal lahayn meel ay ka hadleen iyo weliba saxaaf muu beenin arrintan baraha bulshada la isla dhex wareegayo maalmihii ugu dambeysay haddaba waxa ay dheheen dadyo qaarwaas ku tulikuteen iyo weliba waxaan sidii raadtoona lahayn waa waxaan cuntabayn wuxuuna badnayn waxyaabaha baraha bulshada aada la wareegaysaan ee been abuurka haddii ay jirtaba nin baa weligiiba guursan jiray balse maxaa laga wadaa in baraha bulshada lala yimaado waxyaabaha aan qurux badnayn haddaba dadyagu baraha bulshada isticmaala ayaa weliba siyaabo faldan uga falcelinaya arrinta iyagoo oo sheegayay in adna iyo weliba saxaaf ay ku kala tageen haddaba dadyo badan oo baraha bulshada isticmaala ayaa taa beeninayay weliba xalay ugu dambeysay ayay soo wada duubiyeen muuqaalo kuwaasoo ay soo geliyeen jaranadooda balse ma jirto waxyaabaha aada la wareegaysaan ayay dheheen dadyoga u dhulka daloola ee ka warhaya mar walba ee weliba alla socdana haddaba baraha bulshada ayaa noqday meel maxakamada weliba cid gaarana ay adeegsato muuqaalada jarjarista iyo weliba waxyaabaha kale lagu aflagaadeynayo qof kastoo baraha bulshada caanka ah oo laguna soo dhegayo iyada oo weliba siyaabo faldan looga falcelinayo haddaba maalinba meel ayay soomaalidu fuushaay hadda waxaa la saaranyay weliba wiigagii ugu dambeeyey in si weyn loo hadalhayay tiina faray iyo weliba saxaaf kuwaasoo baraha bulshada muran weyn ka dhaliyay balse waxa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan adna iyo weliba ninka loo yaqaano saxaaf waxyaabaha baraha bulshada ka socda waayo haddii ay tahay wixii fiisraadis iyo weliba waxyaabo kale dadku wax la hadlo maaha haddaba tiina faray ayaa xaggeeda ku tiiqtiiqsatay oo sheegtayna in ay ka qaadi doonto wacadna ku martay sida iyadoo hadalka u dhigtay haddaba hadalkan xagga horaad ku wada aragteen ee kaftanka ahaa ee ahaa inuu miiraysanayo welibana tiina faray haddaba ayaa kaftan iyo maadaalaha
weliba dadka wax magaratada ayaa saacadii lasoo dhaafay baraha bulshada si weyn hayay iyaga oo sheegaya in ay tan markii horeba ay isku soo socdeen balse aanay ahayn wax hadda bilaabantay. haddaba dadyo fara badan oo ka ficilnaya arrinta ayaa sheegayay inay waxba ka jiraan, qaar kalena ay lahayn waxba kama jiraan, waa kutuliyo waxaasan iyo raatoona lahayn ee dadka ha laga xishoodo oo weliba ha la daayo. weliba dadka baraha bulshada isticmaalaya ee fiidiyoyada inii soo duubaya ininka maaweelada iyo qosolka in aad deysaan oo weliba ixtiraamtaan oo weliba aad ilaalisaan weeye, balse maaha inaad ku qaylisaan cay iyo aflagaado waxyaabaha munaasib ahayn oo qurux badnayna aad dadka kula dhaqantaan. haddaba baraha bulshada ayaa marba waxaa soo gala wixii markaa laysku haystee weliba hadalla kor loo qaaday oo fahmiyey dhexdooda yaala ayaa baraha bulshada la keenaa, kuwaasoo kuwa magaratada ahay inimo ay dhinac u ka haystaan, qaarba dhinacay foosada u duldulcaysiiyaan, weliba ay maagis ceeb iyo weliba waxyaaba aan qurux badnayn u raadiya dadyowga lamaana ah, kuwaasoo usoo dhibtooday fiidiyoyada iyo waxyaabaha ay matelayaan sidii ay bulshada ku xidhan u gaadhsiin lahaayeen waxyaabaha hibada ilaahay siiyey, balse waxay kala kulmaan kumentiyo caya, aflagaado iyo weliba waxyaaba fara badan oo aan qurux badnayn. fiidiyoyadoo la qaado la jarjaro meelo kalena lasoo dhigo iyadoo lagu soo dul qorayo waxyaabaha aan qurux badnayn oo cay iyo aflagaado iyo waxaan qofka bini-aadanka qofka kale walaalkiisa ka qaban. haddaba dadyowga baraha bulshada siyaabaha khaldan uga falceliyana waxaanu leenahay ilaahay ka baqa, waxyaabaha dadka ka gudbinaysaana joojiya, iyo weliba kumentiyada aflagaadada cayda ah ee aada qortaan mar walba, kuwaas oo dadyo fara badan oo aada ku xidhan tihiin oo waxyaaba wanaagsan inay soo gudbinaya aad ku caydaan. haddaba soomaalida ayaa sidaa u badan tahayba waxa ay yihiin dad xagga xumaanta jecel oo weliba waxa xun sheergareeya ama fogeeya, balse aan waxa wanaaga iyo waxa waxtar kale aan mar walba isku hawlin, balse mar walba waxa ay jecel yihiin xasarada iyo waxyaabaha kuteenta ay baraha bulshada lala dhex wareegayo. haddaba fahmiyadaasa ka gaabsaday waxyaabaha baraha bulshada ka socda ee ah in ay dadkaasi isqabaan balse aanay ka hadlin xaaladaas. dadyo badan oo ka falcelinaya arrimaha ayaa sheegaya inaanay waxba ka jirin waxyaabaha aada baraha bulshada lala dhex wareegaya ee kuteenta asal iyo raatoona lahayn, balse dadyowga baraha bulshada isticmaalaya ahaa qaar mar walba u jaban waxyaabaha xunxun iyo weliba isqaqabsiga inay mar walba raadiyaan fiidiyoyadana ay soo jarjaraan raadiyaana ceebaha ay qofka la leeyihiin. waxaanu leenahay ilaahay ka baqa taadaan ku dhowrsaneen hadheehanin ceebaha qof kale. haddaba dadyowga baraha bulshada isticmaalana waxaanu leenahay xagga khayrka u faa-iideeye, balse waa inaad ka tagtaan waxyaabaha xunxun ee baraha bulshada.